guddida joogtada ah ee golaha baarlamaanka Somaliland ayaa kormeer shaqo iyo dabagal ah ku tagay dekedda Berbera sidii ay u hubin lahaayeen heshiisyadii horumarineed ee shirkadda DP World la gashay xukuumadda Somaliland. waxaana sidoo kale guddidani ay booqdeen dhaqdhaqaaqa shaqo ee xilligan ka socda dekedda weyn ee magaalada Berbera. marayaha dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi ayaana ugu horeyn warbixin ka siiyay guddidan xaaladda dekedda Berbera. guud ahaanba dekeddu waa sidii aan idinka warramay shaqadeedu waa 100%. gaar ahaanna inagii maalintii dhaweyd bisha 12keedii dhagax dhignay. waxaa la filayaa in schedule-kii la helo xilliga uu iyo siday muddada ay qaadanaysana waa nigi hore u sheegno waa 24 bilood. maalintii saxiixa laga bilaabayna maalintaasaa u koowa bilowgii dekedda insha Allah bismillaah tacaala. dadku in badan bay isweydiinayaan oo leeyihiin goorma la bilaabaya maxaa dheedkii loo sheegi waayay. dheedka maalinta heshiiska lagu dhuftay ayaa bilow u ah. waxaana la filayaa in agabkii ay lahayd shirkaddu ay muddo dhow ku timaado 3 week ilaa 6 week insha Allah. waana ku dabagalaynaa waana rajaynaynaa dhawaana wafdigii hordhac ahaa ee u diyaar gareynayay site-kii ay degayeen ayaa imanaya. xildhibaan Axmed Ducaale ayaa isna dhankiisa saxaafadda ka warsiiyay hawlaha shaqo ee xilligan ay ku kormeerayaan dekedda weyn ee magaalada Berbera. guddiga joogtada ah ee golaha wakiiladu waxay golooyinka fasaxba ku jira waxay wakiil ka yihiin inta goluhu maqan yahay iyaga sii matala golaha. waxa ku soo beegay sida ogtay maalintii dhaweydna heshiis baa dhagax dhig baa dhacay oo qaybtii ugu horeysay mashaariicda. madaxtooyadana waxa ka dhacay xaflad baa ka dhacday arinta lagaga hadlayo oo inuu bilaabmay mashaariicdii la ansixiyay inay bilaabmeen. sidaa darteed baa ku soo beegtay inaan waqtiga nimaadno oo aan kormeerno oo mashruucaas bal sida uu suurta galayo marxaladii ay ahayd in mashaariicdu bilaabmaana waa la gaaray runtii marka la eego heshiiskii la galay DP World.